وعن أو سند الكلمة كسرنا كدعوة إنسان دعوة يا شقيمة قدر أنت مدنا واحد كسر دواتان مناسبة بلارن سوي لوسو أجاسين ويسو أجاسين دمان بجالية الصومالية كل رقم مقالة الرياض مناسبة دان لوسو دوين تفسير كعصود الصومالية أو فدي دلك السعودية عربية مدن أمباشطور داير محمود جيل دمان تيمو عن ذي اللي هي دعوة شوعان. سيدة عربية وحن حفلتها محمد فلي فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. waxaan cawda xafladan aan u nimid inaan ku soo dhaweeyna safiirkeena cusub kuna sii sigootana safiirkii hore waxaan xusuusanahay aad xasuusinaytiin in magaalada Riyaad wax badan aynu joognay safiirkeena hore aad iyo aad noo saaciday waxyaalaha aan ku xasuusin karno ay tahay markii qof dhinto si degdeg loo in loo helo si degdeg waraaqiisa si degdeg loo helo waxaa kaloo limid ah aan ku xusuusinayna safiirkeena qiimaha badan oo qayb badnaa markii qof la xira in si degdeg waraaqa isna loo soo dhameyn jiray oo nin Soomaali maanta aan wada xusuusanahay in waraaqaha aad looga baahan yahay dalkan aan joogno oo dhibaatada hadii aad ka taagan ay tahay ninka dhintay iyo ninka la xira sidaa daraadeed si sahlan baan u heli jirnay intaas oo idin anigoo ku hadlaya odayaasha magaalada Riyaad waxaan ku leenahay gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow siyaasadda aan la gaarsiinayna Soomaaliya aan iska dayno mas'uuliyaddeena saaraya aynu sameeyno warkooda si kastaba ha noqotee dad iyo waan is aamino aynu saxansano khayrka sida daraskayni midnimo aynu sameeyno dad iyo is aamina waxaan sara u leeyahay waxaan si toos u leeyahay saxariir tahriibiyo silixiina soo maray safiir naga daweeyo la kala soocino noqo Soomaalida joogta Sacuudiga Sultan waxa ku sito soo dhawow ku leeyahay anna sidoo kale sii joogo wariga oo warqay hadda waxaan ka codsanayaa musiga ee kale loo soo diray heesta musiga insha Allah
ku hadlaya magaca dhammaan ilma ubaxa dhalinteeda eedayaal soo dhowo mudana safiir ayaan ku leenahay. waxaan jecelnahay inaad inoo fuliso waxyaabaha aan kuu soo koobinay. kow, inaad noo furto meel walaalka luqadda af Soomaaliga nagula baro saan ilmaha fiican ula tartano. labo, inaad noqoto safiir ummadda dhex galo ubadka daryeelay kana wadaay agoonta ilmaha jiran kuwa baahan ilmahaadi baan ahay naga wadahay. saddex, soo nooleynta xiriirka safaaradda iyo bulshada riyaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan na ogaani. Soomaaliya idinkana shacabka reer duulaad aad iyo aad ugu mahadsantahay Mr. Ismaaciil Gulen oo ka mid ah dhalinyarada ku shisha magaalada Riyaad ee haddana maasha Allah sida uu ugu hadlo luqadda madaxweyne haddana waxaan ugu yeeri doonaa heestii ahayd Soomaaliyeed Seni
dhalinyarada isboortiga fanka haweenka bulshaweynta riyaad oo dhan odayaasha culummada waxaan leeyahay waxaan caawa halkaas kugu nimid inaan ku soo dhaweyno saacad safiir mudane daahir maxamuud geelle iyo inaan sigootino safiirka hore mudane axmed cabdalla marka waxaan leeyahay reer riyaad saacad safiir way ku soo dhaweynayaan aniga hadal igama furna laakiin saddex walxaad ayaa rabaa inaan ka hadlo marka ugu horreyso saacad safiir waxaan rabnaa inaad noqoto safiir bulshada ku dhex jiro oo ka xiran albaabka inaad noqoto koow waa kaa dalbanayno midda labaad inaad shacabka meesha ay degan yihiin junuub riyaad nin safiir oo yimid ma jiraan inaad noqoto nin safiirka ugu horreeya oo meesha ay soomaalida degan tahay yimaado oo la buraysto oo la jooga inta midda saddexaad waxaa weeye maaragtay waxaan diyaar halkan ummadda reer riyaad hortooda kaaga dhagaynaa haddaan nahay jaaliyadda iyo dadka ku nool magaalada riyaad inaan gacan buuxda kaaga siinayno ku siinayno hiil iyo hoobaan kula taaganahay ku soo dhawow saacad safiir garabaadkaada meesha ka soo jeedi bulshada diyaar ku tahay dadka Soomaaliyeed arrinkan sida hagaagga ah isku soo dubariday iyo dadka ka soo qayb galay waxaan rabaa fariin yar inaan idin gudbiyo safiirkeena hore Axmed Cabdalla waa la xiriiray wuxuu noo sheegay inuu xanuunsan yahay ficlan waana xanuunsan yahay oo fadhi badan aan u adkaysan karin marka salaantiisina waa idin wadnaa anigana meesha ku matalo adigana ugu matalo yidhi meesha tag marka salaantiisa inaad guddoontiinna waan rabaa haddaan gurub sheego waxaan ka baqayaa inaan dadka qaar hilmaamo laakiin ninkii yaraa ee goleyda lahaa warqad anigu sooma aana qoran tiisaan uun ka jawaabi doona haddii ilaa yidhaah tan kaloon rabo aad iyo aad ku rabo waxay tahay inaan tilmaamo dadka Soomaalida maankooda ma gurin marka wasiir hore warfaafineedaan ahay fanka iyo fanaanka iyo abwaanka iyo hal-abuurka waa ka warqabaa laakiin haddana halkaan ama ku dhasha ama u ekaa inay curiskaas iyo maaragtay qaadintaas iyo nidaamkaas ay leeyihiin ma aan u malaynaynin marka fariinaha hadda halkaan waxaan ugu diraa wasiirka warfaafinta maareeye waxaan leeyahay riyaad baadi badan baa kaaga maqan waa inaad isa xirto xagga haweenka oo ay ahayd inaan ka bilaabo waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin abwaanada aad u mahadsan tahay gudoomiye ku-xigeenka aad u mahadsan yahay gabdhaha ka soo qayb galay aad u mahadsan yihiin taas waxaan rabaa oo kale inaan mahad u celiyo aniga dowladda ii soo dirtay dowladdaana galato shaqadan dowladdii oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo intii ka hooseysaba halkaan mahad celin uga diraa waxaan rabaa inaan idiin sheego dareen aad u qiimo badan inay idin hayaan oo ah in bulshada meeshaa joogto adeegga la sii jiray adeeg ka gedisan oo ka horumarsan in la siiyo ayaa la ii soo diray fariintaasi dowladda dabcan dowladda sacuudiga waa martida u nahay waa dalkeena ka shaqaysanay waa dalkeena iyo dalkeena isku xiran yihiin oo aan u taaganahay ama aan u imid in xiriirkaas isaga la horumariyo waxaad gaara ay leeyihiin soo dhaweynta waa waxa dadka xaqa u leeyihiin waa haddii idinka arkaytaan laakiin aniga waxaa laga rabaa sagootinta inaad idinka shaqayso marka aad sagootinaysaa inaad idinkoo intaa ka badan oo maaragtay kaga badan waxaynu ka imaan kartaa shaqo macno leh inaad meesha ka qabto marka aniguna waxaan geli doonaa qabanqaabada xafladda iyo sagootinta inay taka gedisnaato oo ay ka waxyaabaha iga farxinaya waxaa ka mid ah in afka uu dhaqan yahay luqadda caalamiga oo meeshaan looga hadlo iyo TV-ga iyo joornaalka iyo maxaanku idhahdaa suuqa iyo waddada iyo iskuulka intaba Soomaaliya kama yimaado marka hooyada Soomaaliyeed wiilkeeda galabtii markuu soo noqdo isagoo daalan ama gabadheeda markii soo noqota luqadii bartay ee dhaqanka iyo dhaxalka ku xirtay aad ay u mahadsantahay waxay ka imaanaysaa hooyada ka imaanaysaa annagu safaaradda idinku sugayno waa idin imaanaynaa waana bilaabna sharqiya waa idinku sugay
shaqada marka aadaysaan istiraaqada soo heshaan aan shaqada idinku qabano oo maalinkaas shaqaylaheedan aan intaan idin soo wada shaqadii aanay u baahan waayo waxaan rabaa inaad shaqaysaan shaqada idinkoo ku maqan aan shaqadii kale u baahnayd safaarada aad u baahnayd aan idin qabano marka idinka safaarada ma noqonaya inaan idin sugno oo albaabada aan idin furno oo xafiiska safiirka uu idin furnaado oo maaragtay telefoonkiisa uu idin furnaado laakiin waa idin imaanaynaa kuwa gobollada jiro iyo kuwa jaamacadaha jiro iyo kuwa rogaha shaqada jiro inta waa u imaanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waana bilowday waana dhammaystiraynaa waa ballan safiir ummadda u dhexeeya oo macnaha waxaan kula eexda iyo qabyaaladii iyo gruubka iyo deegaanka iyo wixii aysan ku jirin ilaahay waxaan ku leeyahay subxaana watacaala in wiilka yarkaa waxa uu gartay anigoo ciro ah aanan garan waayin qalabka sababta waxa uu gartay oo caawadu waxaa laga hadlayay soomaaliya hal ha noqoto qabiilku waa nacnay sunta qabiilku waxay waa seef oo waxmareefta ah waxay la tahay kulliya la wadaagi doonaa aragtida uu ka qaba arrinkaas markaas haddaad maagteen iyo haddii aad aragteen intaba ma dhacaysa waa la bedela qofkaan ugu yimaado safiirka toos ugu imaan kariya wax barobaleema ma jiraan goobta shaqada loogu imaan karaa goobta nasashada loogu imaan karaa qofka asagoo xataa khabiiraya haddii warka u dhegaysto oo waxa warka u akriyo ma dhowr jeer saddex jeer u dhegaysto waxaan inay daacad yihiin iyo inay aftihaamo yihiin iyo inay si kale yihiin waa uu kala fahma بس يوصيبه انت اللي فاهميسي يا حرمك قال لك قال عصاري ضل كان ضل آتي عاد موجود دياره شغال عنه موجود دياره وحبالش عنه موجود دياره ودن والكود يسكو علينا يا نهار هذه هذا اللي بكوب هذا اللي waxaan aqoon inuu aan meesha tan wax fiican ka qabano waxa ugu horeeyana waxa waaye waxa aad wada leedihiin inaan leedin dareensiin inaad wada leedihiin safaaradda safiirka maxaan ku idhahdaa howlwadeennada dad soomaaliyeed oo soomaali ay leedahay agabka iyo dadka shaqaynaya inta waxay soomaali leedahay waa qolo looguma adeegi karo gurubna looguma adeegi karo waa in iyagana ay dadaalkaas helaan waa naga go-an tahay dadkan waa ku wargeliya howlwadeennada ama ha noqdaan kuwa safaaradda ama kuwa konsuliyadda waxaan u sheegay idinkana aan rabaa inaad ogaatiin saddex xaaladood aad safiirka inta la shaqaynaysa isku qaban karaan haddii qof soomaaliyeed xarunta uu leeyahay ee safaaradda iyo konsuliyadda yimid la karaamo rido ama dhawaqa lagu karaamo rido ama dhaqanka lagu karaamo rido markaas aniga waxaan u taaganaha waxa ay tahay karaamo ridkaas meesha uu ka yimid inaan saxo waxa waaye qof soomaaliyeed oo adeeg mudan haddii adeegii oo mudnaa waqtiga oo mudnaa iyo sida ugu mudnaa mid kamid ugu waay taasna waa waxay safiirka ugu taagan yahay inuu saxo أنت وحنا وصلنا في المكان هذا أنت باسبورك أولا أنا وليسي وأنت باسبورك هو باسبورك هنا أي جنسيات وحنا يا باسبورك الله تشرينا ترى سوا ترى في عندنا عن كبرينا الذين يسمعون الخلق يتبعون أحسن إنه نقدم ضخ وقف في عن تدين سنة في عن ضاع ويلكي أنا كوشيري أنا نبدأ باسبورك هذا على غيره يباسبور عليه وباسبور الكتروني قفك باسبور يزيد يسالين قفك لو يسمعك وأولا هي ظروف بدنا نسكت ضدك الصوماليين باسبور هذول باهيين لكن هذا الإعلان كدولة دعوة ونروح كمال بدنا نقدر نقول إن باسبور كده بلوه الدكتور باسبور كله كله يهدي اعتقاد ولا بقول هيك اعتقاد ولا بقول هيك بعد ما نسوا لكن واحد من شيء ضوابط أم بمارة الدورات معنا له هي مسمين أم باسبور كان قف أن صومالي هي مسجعات سجن. وعن عطارنا نطلع ماشي هسكنه حلو عدد كيف يدرس شيء عايز هي واحد باين. أنا وضياش مسري علينا ماشي. معلومة هذا إن الله بيوم أو بعض بيدك كاس وحنا. وكسر ويننا
عاوزين إن تأمين كوباتيسي أريد وأنا ما سنتها. وحدونا عياليها يفنك والله الشيء سعودي عربية باطل أنا يرى العيد بتاع هو اليوم والله الشيء الحب ليس أنك فنك إذا كسبت جالية شرقية وسودوينا جالية الرياضة المغربية حول درسي على ميكروفون كان يكون هذا لكن يقدر ترتيب كل الهاية لكن وحنا نكون بدلنا إلى يقدر نصور أنا قلنا مدينة مع الله حاجة عادي نكون معه ناس أنا كسر بحط إذا كان نسيب حضرية لتين سفر كل رأي سفارات عم بقيت جوازات كل بس المرة أي بحان وهذيك تبدأ على قصة قلتنا هذيك أنا بتشوف إن شاء الله هذا أنا كنت وعدين سوى سعادة وحنا مالينا 9 days إن كيرا بس الورد في بعدين وإيالين وقت ما نجحوا آخر أجتين وقبلين ترجعوا مع كرتين هذه لا هي هذا ويكند كان وايد لا على نفسي هذا روحي على رياضي تعالى مرة صادرين وأنا واحد شقي معي أنا واحد فتح كسي معه ضد كسوالي ده هاي كلام لا كلام جوجنا سأكون بلا واحدين معنا لا هذه عندكم إيش على الكفوف بدأ أرديد وحاولنا كرامة قيمة إن مستقبل كنا حكومة عن دورة أضبط تعليم أرديد إن إيه هلا هي ترى أرديد إن تعليم تيش ماشي على دون الجيل دون وبيدي إن ما أبغى إن أنا ما أروح أنا ما لكن هو تعليم تعيين مركا تعليم تروح اللي كانوا ليه نهار متعنا إن هشام لكن هاي يعبد بيويل أما قبل إلى عدل أي على فنور ما تعليم تساسو إلى دلوقتي هذه جامعة في عم بوصل لما كفاية لسان أن يرجع على قطع كذي كويس كذي قفعاتها مركو حالا رانا ليرد يجنا إن يقعدوا بالسيان إن مغلان مسكعتكم يرينا ندلال كبيرة منطقتها السعودية قد بربع كباتيس وحبسي وكجرا إسبتال كجرا أنت أيضا مركها أي تشتو أنا وادو عن شوغا منطقتها شقية الدمام waxa xabsiga ku jira waxa weeye dad badan ee maalmo baan u wada tago oo aan soo fiiriyo oo la hadlo qofiyada loo soo diro warqadahan go'an laakiin waxay ku oranayaan annagu ma maqlayno kalaam waxaan rabnaa noo soo shaabadee safaarada jawaab aan u siiyay haddii markaas xafiir aad noo heli kadib nin arrimahaas u fararanaan ee noo yimaada ee manduub ah رسمي وهي وحلقية على تركب ما إلا السمية شرقية هي الرياض شرقيات البلد والله حنون عدوي وايد لكن لو شو سيد حنون بدنا بس كيجري على الجلالة حلو وجود بين حلقة أما هنقض قفك بيت في سلاس لا يهي أما هنقض دولار كسر مالي وأنا شرفت عيني كرامة إلى هي بدي نصبر كنا وقالت مدرسين وسيهم أما هنقض arrimahan oo iskuursiga xaaladka xataa waa laga sheegaya maalin iyadoo barabaleebada uu taagan yahay waxaan jeclaanaas dadkuna waa qabaan inta badan oo gebidooda waa qabaan saan u qabayna inaan loo timaadin oo waqti adiga aad qabsaysa waxaan doonaynaa nin wada teliya oo xooggiisa ku shaqaynaya laakiin awooddu ku shaqayn lahaa baalashu ku dullaa wado maalin walba waxaanu taaganahay surdad iyo imaarad waxayna adigu maxaa tahay war maxamed oday soomaaliyeed baan imanaya ma dadka yaga halkaa jiifjiifaan ana uga tegay marka wax weeye hawshani ma sahlana adna waqti caawaya lagaa qaadin intaasi brief garays kuugu siman ku soo dhawow inaanan waayin qabkeena war waan haysanaa sharafteena sida aan nahayna waan nahay maalmahana way dhammaan doonaa sideeni baanu ku noqonaynaa iyo kasii fiican sii badanayo laakiin xanuunku wuxuu nagu dhalan lahaa xal raadino xaalad lagu baxnaayo waa xanuun weyn waxa laga sheekeynayo annaga gudaha markaan joognay dhib waan ognahay dhib waa u jiraa laakiin haddana xanuuna hadda nooc kala ayaan maqlayaa waxa kaliya noo furan waa inaan ka shaqeyno inaan ka baxno karaamadayna iyo dadkaas qofka soomaaliga karaamadiisa qofka mas-uulka karaamadiisa qofka soomaaliga ay fadhiistaan marka waxaa codsanaya waxay tahay dadka dhibaatooyinkaasi xaaladahaas inay ii yimaadeen
oo arrimaha ay la socodsiiyaan wixii talaan ay ugu soo biiriyaan calankeena intuu inta ka joogo calanka intuu lagu heli karo waa ku raadin markaas oo macad laakiin shayga maanta